درجيو ونال وانا لفتش لغا سودا الله درجيو ونال وانا لفتش لغا سودا halkani waa xaruntii goobta tuulada Guris ee ka tirsan degmada Iimay bari ee gobolka Shabeelle الله درجيو ونال وانا لفتش لغا سودا الله درجيو ونال وانا لفتش لغا سودا تردارا وهم كورن دينتي شرعية سداعة أقول رغمي حقوقني دنيت أدونك ودلعي تدل دريا وقرا مشهد دهين كاري تدل دريا وقرا مشهد دهين كاري حسبي دينتي شرعية سداعة أقول رغمي حقوقني دنيت أدونك ودلعي تدل دريا وقرا مشهد دهين كاري تدل دريا وقرا مشهد دهين كاري waxaa soo gaaray wafti ballan oo hogaaminaya gudoomiyaha jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadi iyo wafti ballan oo hogaaminayo markuu soo gaaray faafka hore tuulada Guris waxaa kaga hortagay dhammaan dadka degani tuuladan oo ku soo dhaweynayay calaamadaha iyo calanka jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya gudoomiyaha ayaa meel fagaaraha kula hadlay bulshada qaybaheeda kala duwan wuxuuna ugu mahadceliyay sida ballan oo muujiyeen taageerada oo hayaan jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya tuulada Guris oo kamid ah goobaha taariikhiga ee deegaanka ku yaala ee ka qayb qaatay halgankii hubaysnaa ee jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayaa maanta muujiyay wacdaro ka duwan kuwii hore waxaana gudoomiyaha iyo waxgaradka tuulada ku dhaqan khudbada isku xiga ka soo jeediyay madasha hadaladoodii kamid ahaa Guris waxay kamid tahay goobaha Allah u naxariistay ciidamadii wadaniga xoreynta ogaadeenaya ay saldhiga u ahayd ilaa saacadii u dambeysana meesha kaliya ee weligeed taageeradeedu hal dhibic iska bedelin bay ahayd xanuun badan baa dadkeena la mariyay si jabhadda looga fogeeyo wax walba waa loo geystay Guris laakiin biidnillaahi kariim xarun barakaysanna way ahayd xarun qalbiga jooxana way ahayd waxaan marka runtii waa aad baan u qiiroonaya hadallada iga kala baxayaan laakiin ilaahay unba ajirkiina gudi kara bini aadan ma gudi karo ma haddaan idin hayno waa mid ilaahay aan u gudbinayno ilaahay uga dacwoonayno inuu magaaladan magaalo barakaysan magaalo khayr qabta way barakaysan tahay magaalo barwaaqo iyo horumar iyo sharaf ku noolaatay inuu ka dhigo dadka jooga waa dad wada karaamaysan weeye nuur bay wada qabaan nuurkii halganka ku jira nuurkii diinta ku jira labada qofka isu raacana ilaahay waa nimceeyey marka aad baan idin salaamayaa intaa markaan ka gudbo waxa weeye waantood ma hadli karaa waxa weeye laakiin waan idin sheegay hadallada weeyarada iska ka daba marmarayaan saad la socotaan adduunkii isbedel badan baa ka socda isbedelka wuxuu keenay waqtigii iscaburintii caadintii way dhamaatay haddana dulmigu weligii ma istaagay wuu iska jirayaa laakiin wuu ilka beelay marba wuu soo noolaan marba wuu soo yari kici laakiin muxuu ahaa dulmi ma dhammaado laakiin mar walba dulmiga waxaa weeyaan bini aadanka imtixaan baa lagu geliyaa waxaa lagu hubsadaa iimaankiisa cibaadadiisa lagu tijaabiyaa odayaasha ka leexda odayaashan la hadlayna inay odayaasha arkaan wey haa ka leexda odayaasha haa marka dulmigu mar walba may dhaaf kuwa fadhiya dhaaf may fadhiyaana dhaaf ciyaalka awe naftii hore ayagaa iskale ayagaa waddanka iskale ay kuwaas ha fadhiyaan ما هفديان هفديان ويلشين ويا كون دونين برينا محوها ودنك حكمان وي dulmigu mar walba uu madaxiisu la soo kacaa laakiin marka u dambeeya xaqa ayaa ka xoog bata bini aadankana waa lagu imtixaamaa bini aadanka waxaa lagu imtixaamaa dulmiga lagu imtixaamaa iimaankiisa la fiiriyaa
adkaysigiisa la fiiriyaa marka waxa nagu dhacaya waa cibrad weeye xorriyadna ilaahay baa bixiya dadaal kasta samee si kasta u dadaal xagga rabbi marka ka soo go'do si fudud yaad u helaysaan maamulkii meesha ka jiray Tigray la oran jiray dagaal adag baa lala galay dhib badan buu soo maray dhib badan buu namariyay awoodda ilaahay buu ku tegey awood bini aadan kuma tegin sida fudud dabeelo kale uu baxay laakiin waan dadaalnay annaguna waan dadaalnay qoomiyadii kale nagu dayday way sii gudubtay ayaga ilaahay isku diray meeshoodii hadda ku urureen kuwa hadda joogana waan arki doonaa waxay sameeyaan laakiin annagu kolleyba nabad iyo wanaag baan doonaynaa ciddii wanaag iyo nabad nagula tacaamushana waa khayr ciddii kalena waxna kama Soomaali weligeed wax kama faa'iidin Soomaali cid la dagaalantay oo aan meesha ka tegin weligeed lama arag waxaa la dagaalamay kuwii ka horreeyey Hayle Salaasa la dagaalamay ciidankii uu sameeyey Soomaali kula dagaalamay Syria baa meesha ka qaatay Mingista la dagaalamay kuwii muxuu ahaa Eritrea waxa ka qaatay Tigray waan la dagaalamay kuwii dariskeena baa ka qaatay waa iska soconaysaa marka qofka dulmi wada u tagaya inta marka ka gudbo annagu maanta waad aragtaan xaaladda adduunka ka jirta geeska Afrika ka jirta dhulkeena maanta waa barwaaqo ilaahay uu nagu nimceeyey roob nimcuuna siiyey nabad buuna siiyey dad Soomaaliyeed oo walaalo isku diin isku afaan nahay marka waxaan wax ku noqon karnaa oo dadnimadeeda ku soo bixi karta waxa weeyaan waa midnimo weeye iyo walaalnimo laba shay bas aan deeqda Soomaalinimo iyo islaamnimo labada haddaan isku helno nimco kale noo dhiman ma jirto waayo dadka walaalaha awoodooda kor bay u kacaysaa way midoobayaan gacanta is qabsanayaan way xoogaysanayaan marka koowaad waxaan ku dadaalaynaa midnimada asalka tiirku waxa weeye inaan midnimada ku dadaalno midnimada wax badan bay ka kooban tahay diintaan wada leenahay inaan xurmayno shuyuukhdeeda waxaan idiin sheegayaa waddankan 1000 sano u dambeeyey dagaal baa ka socday diineed maanta islaam waxaan ku nahay shuyuukhdan meelahan buuraha hoostooda fadhidan islaam ku nahay meelo kale kuwa ka yimi islaam kuma nihin 100 sano kuwii dhulka joogay baan islaam ku ahayn waa inaan difaacno marka waa inaan difaacno waxyaabaha aan soo kororsanno waa inaan ku biirino waa inaan waxaan soo korsanno ku biirino laakiin inaan kala tuurno maaha taas annagoo culimmadeena waan difaacayna marba haddaan jooxannahay waxaan u jeclanahay sida hadda aan magaceeda aan ku soo marnay ee gumaysiga uu loo wariyey agoon iyo raja agoon iyo aan u baahannahay waxaanu nahay dadkii la ceerteeyey ee waddanka laga kiciyey ee hadda darteed u dhibaatooday maantadana guul baan taagannahay annagiyo waxaan arki jirnay annagoo idaacaddasan kulliga ku dhegaysano aan leenahay inay dowlad dadkoo dhan uma kuwada maqlayaa haddana maanta jaaygaan la taagannahay waxaan leenahay gudoomiyaha baan kor taagan calamadii baan u haynaa ilaahay kuma qaraatay waxaad moodaa maanta inaad xornimada caadiga ee saxda inaad dhamaystirantaad moodaa waxaa weeye ugu dambayntiina gudoomiyaha jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya oo aan fadhiisan ayaa gurigiisa ku booqday sayid cabdiwahaab sheekh aadan oo ka mid ah culimada deegaanka Soomaalida gaar ahaan culimada gobolka Shabeelle gaar ahaan culimada degan tuulada Gudhise gudoomiyaha ayaa xog waraysi kadib ka soo ducaystay sayidka tuulada Gudhise oo ka mid ah goobaha taariikhiga isla markaana ay ka jiraan xabaalo ay ku aasan yihiin shuhada u shahiiday qadiyada ogaadeynaya oo tiladooduna lagu qiyaasayo in ay dhan tahay in ka badan 100 Ibrahim Atoosh wakaalada wararka oona tuulada Gudhise degmada Imi Bari
xisbiga diintiyo sharciga si daacada ugu dhaqme xuquuqdeenii dadnayd adduunka u dalaacee dadaal dheeriya oo gala bulshada daadahayn kare dadaal dheeriya oo gala bulshada daadahayn kare xisbiga diintiyo sharciga si daacada ugu dhaqme xuquuqdeenii dadnayd adduunka u dalaacee dadaal dheeriya oo gala bulshada daadahayn kare dadaal dheeriya oo gala bulshada daadahayn kare Dale